الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabnaa koorsadan oo magaceeda uu yahay kalmaash ku xubsan oo la yiraahdo koorsada aqoon kororsiga ee alifle koorsada aqoon kororsiga ee alifle waxaa lagu macdanay nafti hurashiiday oo ahaa taliyihii ciidanka jawxo ee hore nafti hore alifle oo 99kii yani ku shiiday ogaadaya ayaa lagu macdanay mawduucyada lagu qaadan doono seminaarkan waxay noqon doonaan intan ayay noqon doonaan waxaa loo baahan yahay xagga soo fiiriya waxaa loo baahan yahay ruux markuu naftuula yahay ee uu bulsho weyn rabo in uu wax baro ama macnaha yani wada inuu qaadsiiyo marka hore waxa uu isagu yani uu ku hubaysan yahay ee uu ku halgamaya horta inuu yaqaano ko waa inuu taariikhda waddankiisa yaqaano laba waa inuu yaqaano taariikh halgameedkiisa waa inuu yaqaano taariikhda geeska afrika iyo inta ka kale dunidaba midda kale shuruucda waddanka yani jabadiisa iyo barnaamijka ay ku dhaqantana waa inuu yaqaano hadda shaksi kasta oo ka mida yani koorsadan ku jiraay waxaa loo baahan yahay intaas inuu xifdiyo markii loo dhigo haddaan tusaale soo qaadano yani intan waxaa la yidhaahdaa oo waxaad in badan maqasheen gobolka geeska afrika waa intaas geeska afrika la yidhaahdaa waa soomaaliya ogaadenya eritrea jabuuti iyo ethiopia intaas la isku yidhahdaa macnaha geeska afrika dhulkan waa dhulka ethiopia hadda maadaama adduunku yani intan ethiopia ku dhaho laakiin dhulkeeni weeyaan waa la gumaystaa oo eritrea waagi hore ethiopia la raacin jiray laakiin way ka baxday macnaha waa yani way xorowday tanna sidoo kale ayaa macnaha loo yidhaahdaa yani dhulkeena ay tahay ogaadenya ruuxu waxaa loo baahan yahay ogaadenya meesha ay adduunka ka dhacday inuu sheegi karo oo dhihi karo waxay dhacdaa bartamaha geeska africa waa inuu dhihi karo bartamaha geeska africa waxay xuduud la leedahay dhanka koonfureed kenya dhanka bari iyo dhanka macnaha dhanka waqooyi bari waxay kala leedahay xaduud soomaaliya dhanka galbeed waxay kala leedahay ethiopia dhanka waqooyina waxay kala leedahay jamhuuriyadda jabuuti ruux waa inuu yaqaano yani ruux markuu halgamayo waa in uu dadka wuxuu sheegahay yaqaano ruux markuu dagaal galayo waa inuu hubkiisi wato macnaha dagaalka u gelin lahaa waa inuu wato taa waxaa ka dhigan naftuhuruhu waa inuu dadka wuxuu u sheegahay u yaqaano already waa inuu wada yaqaano oo macnaha taariikhda uu sheegi karo markii ruuxa uu su-aal la weydiiyo dib inuu laabto ma aha bulsho weyn baan ka dhex halgamaynaa bulshadaas naftuhuruhu suu shacabka usoo jiidi lahaa ee shacabka yani usoo kasban lahaa waa inuu barto naftuhuruhu waa in uu mar kasta noqdo midka dulqaadka leh ee shacabkiisa dulqaad u leh waa inuu noqdo mid aan shacabkiisa didinin waa inuu noqdo macnaha seminaarka oo inoo soconaya hadda waxaan ka doodaynaa qodob macluumaadda kale hadda ayaa qabsan doonta waxaan macnaha ka doodaynaa hal qodob oo la yidhaahdo yani maxay ku kala duwan yihiin xuquuq raadis iyo xornimo raadis يا بشير أول بسم الله الرحمن الرحيم أرضي ولبا waxa uu leeyahay daqiiqadiisa arday walba waa inuu faa'iideysto si hadda waxaad la doontaan masraxyo shirar waaweyn baad iman doontaan si aad daqiiqadiina u xisaabtataan waa in ruuxu daqiiqadiisa inna uunan dhimin waxna uunan reebin wax dheereen uunan raacsanin shirar waaweyn baad iman doontaan dawladaad la shiri doontaan waxaa la rabaa inaad noqotaan hormuud waxaa dalajin cadanayaa dadna ruuxa xaquuq raadis iyo xornimo raadis waxaa u dhexeeya labada faraqa u dhexeeya ayaa raba arday walba inuu sharaxo unbaa qaadanaya waa laydin cod qaybinayaa bashiir waxay faraqa u dhexeeya حقوق دون يحرم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنو أركا حرم رمضان. يعني قف عن وح الله لو وحو كهي حقوق دي يوم راح بناني ولا وحو كهي سنترين. لما كانوا يشروا وح كور تاجن حرم مديسة. حقوق دون وقف اللي عن الطيبة كم إذا حقوق دي سنترين لكن لو رانك يوقف كاسي راح يستحرم. مثالها
haddii aan usoo qaadano ogaadenya oo xor ah gobolka goday oo kale xoogaa mashaariic horumarineed baa xoogaa laga dhimay xagga wadooyinka isbitaalada waxbarashada biyaha baa gobollada loogu talagalay baa iyada dib looga dhigay marka waxay ku dooday in yani xaq iyadu ay ka maqan tahay waa xuquuqdoon baa la odhan karaya marka intaan marka loo soo qaato xornimadoonna halganka aynu hadda aynu ku jirro aynu ku raadinayno yani madax banaani buuxda ay ka talin buuxda oo ogaadaya loo helo baan u arkaa in ay tahay xornimadoon marka sida awadeed macnihii waa laba qodob oo mataqaanaa la odhan karayo way isa soo hoosgeli karayaan markii xornimada la helo ayaa wax sida aynu la soconaba xaqiiqiyan hawsha aynu hayno xornimada aynu raadinayna waxa hormuud ama la sabar oo ah hadlaha iyo hooyadiiyo waxaa dad door bidaya inay hadluhu mar walba hadlaan marka la horeeyaan oo inay wiilashu boobin aynu sida taraa xaqiiqad baan leedahay xaquuq raadis iyo xornimo raadis faraqa u dhexeeya qeexaysa daqiiqadan wad ilaashanaysaa waxa weeyaan horta kolley waxaan malaynayaa inay iska caddahay xuquuq iyo xornimo waa laba shay aada u kala weyn marka xornimo waa ka madax banaanaansho gumaysi nooc kasta uu yahay oo laga madax banaanaado xuquuqna de waa qof haysta wax markaas iyadaa una ku qanacsanayn laakiin aan xornimo raadinayn dabcan xuquuq buu doonayaa in wax loo kordhiyo ama iskuul loo dhiso ama waddo loo hagaajiyo ama yani waxyaaba ka maqan in loo kordhiyo doonaya lakin xornimo ma rabo qofkaas laakiin xornimo waa ka madax banaanaansho yani cidda markaas wax gumaysanaysa oo laga madax banaanaado inay xornimadu tahay baan u arkaa daqiiqadeed ma dhamaysa macalin xaquuqda xornimadan xornimona waxa weeyaan ka go-itaan iyo ka helid cid wax kaa haysato inaad ka hesho oo aad ka madax banaanaato ood u madax banaanaato go-aan qaadasho waxaa isaga ehel leedahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u arkaa kulli labada qodob ee laga doodayo xornimo waa qof doonaya yacnihi madax banaani buuxda oo wax kasta uu ka madax banaan yahay xuquuqna waa qof raadinaya hadda sida maamulka sheega ogaadeen oo kale waxyaalo yaryar oo hadda ka maqan oo ay caafimaad iyo waxyaalo saas oo kale ay raadinayaan ayaa la dhihi karaa xuquuq xornimona waxaa la dhihi karaa qofku marka uu raadinayo waxii xuquuq yani wax ka maqan oo dhan oo gubinimo uu raadinayo cid yani wax kasta oo gumaysi uu rabo inuu ka madax banaanaado ayaa xornimo la dhaca marka aad bay u kala fogyihin labada qodob baa la dhihi karaa بسم الله الرحمن الرحيم حقوق دون iyo xornimo doon waa laba faraq loo dhaxeeya qofku marka uu xornimo raadis yahay laba faraq loo dhaxeeya qofku marka uu xornimo raadis yahay waxa ka maqan dhammaan wixii uu lahaay oo dhan oo wadankiisa oo dhan ayaa ka maqan marka xornimo doon ayaa la yiraahdaa oo waxa la yaalo wax far ugu jiraaba sida ogaadeenaya ayna far ugu jiro wadan ay u gumaysato maxay ahayday Ethiopia ayaa la yiraahdaa gumaysi qofku marka uu xuquuq raadis yahayna waxa weeyaan qof dee koriirta doonayo oo baradiisii fadhiya saldhig haysta marka xuquuq ka maqan ayuu doonayaa oo qudhiisu dee waxba ka maqan ayuu isleeyahay ka xuquuqdiisa doonaya waxbuu haystaa laakiin ninkii xornimo doonaya waxba ma haysto waan daqiiqada arday يا إنه قرأ وحكي ذا حبناه التوميال المشاهدين قفل بروين وأبسها سيدي وبشري سوى ما بقول لها وتوسين لها وبس لها بدنا الشعب هين لأنها شعب وين هينو سؤال بدنا بين ويديان حياة بدنا فانفوح وين ردريران وين عايان حياة فرضون بسميان روح والبدلنا يضو هبي هاي وقوي هاي في الفرعاني وموتنا يسوى تشيلشو وإن أصيب بشدي سوى ما بقول لها ونسوى تشيلنا وإن موتي حر ولبا وحنا لازم دقيقة دينا إلى عشان يسال روح على فترة صار نسا إلا روح على استاتينا إلا استاتيا ومحرر ساسا دي رسالة مو صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وغديها حرود وغديها إسراء وغديها إسراء حمدوا هذا وهذا
بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال waxaan isuukin yeedhnay oonu meesha idin keenay ama aanu idinku nimid fikrad aanu idinku weynahay ama aqlaan idinka badannahay maaha walaalayaal waxaan doonayaa inaan wax yar idin sheego dee idinkama aqbalin oo idinmadii waxay idinku garanaynin baan anugu garanaya laakiin bal wax yar baan rabaa fikrad ahaan inaan idinku baraarujiyo walaalayaal idin sheego walaalayaal waad ogtihiin sideedaba gumaysiga in haysta walaalayaal waad ogtihiin in dekada laynaga haysto walaalayaal waad ogtihiin inaan xil ku jirno walaalayaal waad ogtihiin dagaalka aan halgamayno walaalayaal aan xil ku jirno inaanaan haddii ay idinku ama nala soconin ama maxay haytay ayna garab taagnayn walaalayaal waad ogtihiin inaan anagu aanaan maxay haytay ama dagaalami karin walaalayaal ama aynaan joogi karin idinku badii aan ku dhex jiray baa tihiin iyadoo taasi jirto oonu idin qirsanay walaalayaal waxyaalaha badan ee maxay haytay aad ku fiirinaysaan jabhadiina waxaan doonayaa walaala haddana kalaan doonaya idinku baraarujiyo walaalayaal waxaa idinka doonayaa inaad raacdaan inaad warka magaalooyinka iyo tulooyin ka dhaca aad usoo qabataan inaad kadibadaha wixii magaalo joogo kadibadaha jiro aad wixii war dadweynaha aad kala qaybsan kartid aad usoo tabisid meelayaal badan oo nagala xidhiiray leeyihiin cabdirashiid xasuusina hadallada faraha badan ee daqiiqadiina qaadanaya waa waxa intaan nuxur ruux walba waa inta wixii nuxura inuu taabto baa muhiim ah hadalladaas sii dheerdheerada lasii tafaasiilinayo ee sii xaladeynteen loo baahnayn oo dhan waa inay hadhaan daqiiqadiina aad dowrataan ardayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mar kale iyo barnaamijkeeni waxa isweydiinta ka dhexayn jiray jabhadda waddanka xidhan duwaadeen iyo shacabka qaaliga waxaan malaynayaa aad bay u faraxsantihiin inaad maaragtay kasoo qayb gashaan shirkan ay isugu imanayaan mudanayaasha jabhadda iyo shacabka sharafta leh annaguna sidoo kale aan ku faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad shacabka annaga mudan oo soo gaartay halgan maanta heerkaa u marhayo laakiin waxaan haddana iskusii baraarujinaynaa iskusii gowaabinaynaa halgankiisaan horey usoo wadno inaan usii wadno oo inaan ka cajisin oon gaalkan qurmoon ee korka naga saaran aan iska dulqaadno oon isku tashi iyo midnimo aan samayno oon ku camalfalno qawlka ilahi u ilahi jaahidu biamwaalikum anfusikum iyo qawlka ilahi u ilahi qaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa mushrikiinta la dagaalama idinkoo dhan say idinla dagaalamay iyagoo idilba marka walaalayaal waa inaan kor isu sii qaadno oo inaan hoos u noqonin oo saan horey halganka usoo wadnay haddana aan kasii fiicnaan weeyaan oo wiil iyo gabadh iyo oday iyo maaragtay hooyada waa inaan kor isu qaadno dhaqaalaha aan dhiibno wacyigelinta aan samayno duurka aan u baxno wax qori qaada iyo wax qali qaada iyo wax firas keena kulligan waa inaan isu raacno farta hablaha waa inay weliba farta la horeeyaan ood wiilasha boobtaan farta ba mar walba ina dhex yaala tartanka gabdhaha iyo wiilasha kama dhexeeya wiilasha gabdhaha ka horreeyay الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد marka hore doona assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh salaanka bacdi aad baan u faraxsanahay simaadkan aynu isugu nimid yacni go-an taata sharafta leh innagoo ka tashanayna qaayaheenna iyo yacni wixii noqdan marka iyada oo qof walba dan gaara lehay ayaa haddana waxaa jirta tan caama oo inaga dhexaysa oo dadka iyo dalka iyo diinta saddexdaaba midaysa ayaa jirta waa mid aynu maanta isugu nimid ka tashigeeda iyo yacni ka fikirkeeda runtii waxa weeyaan qof walba wixii uu abaalaha ee uu yacni tabar ee uu qabto waa mid ka horeysa waana mid yacni laga jazeynayo ilaahayna uu ka jazeynayaa dadka shaqada hayaana uu ka jazeynayaa marka qof walba hadaad keligaa meelka kuban mid ayaad ku xisaabtanto oo labadaa jaze aad labada gudsiso labada jaze baa haddii yacnihi jaze xun lagugu jazeeyo dhibaato ayaa kusoo fasaaraya marka waxaan ku faraxsanahay in aynu isugu nimid arrintaas iyada ah oo yacnihi aydan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعدين هحرد وبعدين هسرع شعبك وبعدين الدنيا ساقط تبدو الدنيا فريدة وبعدين يحبوا ليش يفرقوا ليش والله ريال نفط ريال كان منهم شعب يجبان وحين وضعنا هاي ضمانتهم جبان بس متفاهمي يمين فاهمين معنا ninku wuxuu jabhad yahay markii uu jabhadii iyo shacabku ay kala go-an yihiin laakiin siduu macalimadku inoo sheegayey malay bad ku jira aynu nahay jabhaddu waa shacabkuna waa jabhad marka waa midaysanahay marka calashaan qofka marka hawsha hayaa
wuxuu matalayaa oo fahmay oo isagu dareen buu qaaday wixii inaga maqnaa ayuu fahmay kii marka aan fahmina waa inuu fahmaa oo inuu u hawlgalaa uu fahmaa kaan fahmina waa kay kii leexdayna allaha soo hanuuniyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم عبد الوهاب مهتمين aad baan u dadaalaya waxaan sharaf mudan iyo farxad sida aad duruustaan idiin sinaad u qaadataan ama aad firfircoon u muujinaysaan dheeraad ah aad baad u mahadsantihiin waxaan se idin leenahay mar walba idin faraynaa iyo meel walba iyo waqti walba inaad dadaashaan hawshiina sii wadaan qof waliba ruuxii daciif ah ee liita inta aanu barray inuu qof waliba sii baro xubnaha oo dadaashaan waxbarashada inay sii socotaan rajaynayna hadduu ilaahay yidhaahdo oo qaybaha dambe ardayduna ay qaataan mar walba se hadda haddii bulsho aad la hadlaysid bulshada waxaad odhanaysaa walaalayaal la mid baa tahay waxaynu nahay isma madhaysid oo jabhad iyo shacab ahaan ma wada hadlaysan inaad tahay baad bulshada u cadaynaysaa ood la mid tahay dhibaatada la qabto dhibtaadu ood qabta ay qabaan waxaasad u cadaynaysaa waad mahadsantihiin duruusteenuna maanta meeshaas ay noo ahaanaysaa waa noqo dambe oo khayr Thank you.